waxa taajirka aad ku tahay markastana waad taajir ku tahay noloshaada taada ahaan noloshaada adiga ahaan farxad geli. assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh. idin haantii waa salaamantiin. maanta barnaamijkeedii wada waxa waaye barnaamij dhiirigelina oo ku nool adduunyada waa taajir. sababta waxaan kuu leeyahay waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid qof wada adduunyada ku nool siduu taajir u yahay. ugu horeyn waxaad aamintaa taajirnimadu inaan ahayn inaad guryo leedahay, inaad baabuur leedahay, inaad maaragtay dhul leedahay, inaad taraan leedahay. no, intaa midna maaha. kulli su-aasha inaad waxa laga yaabaa inaad isweydiisid. su-aashaan laakiin anaa kaaga jawaabaya. waxa taajirka aad ku tahay markastana waad taajir ku tahay. qof walbana taajir uu ku yahay waxa weeyaan waqtigaaga. waqtigaaga sababtaad uga faa'iideysan karto amba aad u fiicnaysiin karto amba aad horumar uga gaari karto ayaan maanta idinku sheegi doonaa muuqaalkan. ugu horeyn fasti waa inaad samaysaa waqtigaaga jadwal. macnaha waxaan ka wadaa dadka qaar baa moodi doona jadwalka. waxaad samayn doontaa waqtigaaga aad samaysan doontaa inaad habeenkii markaad sii seexanaysa inaad jadwal qortid. birtole waxaad qaban doontay liisk aad qaban doontid. birtole waxaad qaban doontay waxaan ka wadaa inaad birtole tusaale ahaan birtole waxaan qabanaa anigu markaa laga reebo hadda tusaale ahaan isku soo qaaday marka salaadii subax iyo waxyaabaha laga reebo waxaa ii qoran inaan muuqaal sameeyo. muuqaalka markaan sameeyo kadib waa inaan waxyaabahayga kala sameeyaa, waa inaan muuqaal raadiya, waa inaan fikrad raadiya, waxyaabo kale muuqaal ka sameyn karo. number 2 qodobka labaad ee maaragtay noloshaada ku horumari kartid aana horumarna ku gaari kartid waxa waaye waqtigaagu waa inaad samaysaa step sida u kala horeyso. wax walba sida u kala horeeyaan waa inaad qabataa. tusaale ahaan waa inaad samaysaa waxaad jadwal baa qortay inaan muuqaal sameeyaan qortay waqti saa u sameeyo. muuqaalka markaan sameeyo kadib waxyaabaha kale aan raadinayaa say wax walba u kala horeeyaan muuqaalo si waxaan qaburtay ee jadwalkaygu si u kala muhiimsan ayaan u kala horumarinaya. kadib step by step say u kala horeeyaan baan u sameynaya. inaad fahantaan rajeyna. qodobkayga saddexaad een kaga hadlayo een ka sheegi doono waxa waaye inaad samaysatid liis. waa inaad dhammaad yeeshaan wax kasta ood samaynaysa waa inaad dhammaad yeeshaan. tusaale ahaan hadda waxaan rabaa inaan muuqaal duubo. muuqaalkan waxaan bilaabay 10 daqiiqo. waxaan ugu talagalay inaan 10 daqiiqo ku duubo oo 20 daqiiqo dhameeyo. hadday intaa ila dhaafto waxa laga yaabaa inaan su-aalaha isweydiiyo. sida kuula dhaaftay, sida waqtiga wax ugu qaban weydi, su-aalaha inaan isweydiiyo. muhiimtaasina waaye qodobkayga aan ugu dambeeya een kaga hadlay ee saddexaad wuxuu yahay inaad samaysatid noloshaada markaste farxad geli si aad horumar u gaadho. noloshaada taada ahaan noloshaada adiga ahaan farxad geli. sidee baad ku farxad gelin kartaa? dadka bar baa aaminsan inaad waqti inaad baashaashid, inaad showyo qabsatid, inaad maaragtay xaflada dhigatid, inaad habibaarti dhigatid. no maaha. waqtigaaga waxaad ku farxad gelin kartaa waxa weeye inaad banaanka markaad waxyaabaha jadwalkaaga lasoo dhamaystid inaad banaanka aadid, banaanka u baxdid, waqtigaaga aad dibadda aadid, kadib aad iska soo qaadatid, maqaax iska dhafisid, iska koob shaah iska cabtid, kadib koob biyo iska cabtid. waqtigaaga oo kooban inaad ka faa'iidaysatid aad waqtigaaga ku horumari kartid. qodobka saddexaad afraad ugu dambeeya waa ka muuqaalkan haddaad ka heshay noolay gale siina shari gale aad iyo aad baad u mahadsan tahay.